wadanigu masexdo warartaha afmiishaan mawala cinkarayo waxkuma abuure wadanigu masexdo wadaha afmiishaan ولا عكاريو وحكما أبوري وهلك عيدا وي وكيلك علنك وي وحون ديدا وي وودد سنغادها وهلك عيدا وي وكيلك علنك وي وحون ديدها وي وودد سنغادها ولبا وكيلها متواشى وليقين ولبا وكيلها متواشى وليقين وعد فرايو وانتو بوايانا ولا اللي مكدونيني وعد فرايو وانتو بوايانا ولا اللي مكدونيني ذكروا وقت كما حسامها وسيدي وخردد النعب ويان ودنيقو عواري الرحيم بكر والصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب القري وما أدراك ما قوري اللي وحاوي فرتي ميل قولي أي لك وضط الله معها أنيقو كليا معها لكن قرور كأن متليين كالصعود ما تقول اللي ميل قولي كقطع الله تاسنا معها معنيه وشيدا كلامه وحاوي قوري اللي وحي ضدقه وهيد هالجنكي أي جبات ودنيا حرية وقاذي عشان يصدق كيسنا وقدم يكوشرتي تاسا كينتي marka inay meel gooni ay calaamad gooni ay u yeelato jabhada qori markaan inta ka gudbo waxaan aad iyo aad runtii idinka mahad celinayaa soo dhaweyntan qiimaha badan ee aad noo samayseen waana mid aan idinka filaynay waa mid maaragtay cid kasta oo halgankan u hayb sheegata ama maaragtay u nasab sheegata idinka sugaysay way aad iyo aad baan marka idinka mahad celinaynaa dhammaan waxgaradka dhalinyarada haweenka guud ahaanba maaragtay dadweynaha ku dhaqan deegaankan aad iyo aad baan idinka mahad celinaa soo dhaweyntan qiimaha badan ee noo samayseen intaa markaan ka gudbo waa xilli kulul weeye waxaan maaragtay sidoo kale idinka mahad celinaa xilligaa kulul iyo dhibaatadaas aad maaragtay u dulqaadateen idinkoo u danaynaya oo hankiinu uu yahay qadiyadda iyo halgankaan xambaarsannahay markaan intaa ka gudbo waxaan jeclaa dhowr qodob inaan iska hortaago محمود طيب دكتور محمود طيب با isaguna xubin golo dhexa guddi fulin ah yaa isaguna ii kabi doona hadii la yiraahdo dhowrka qodob aan rabinaa isdultaaga waxa weeyaan waxna waa siyaasad guud weey waxna waa macnaheedu waxa jira wadciga jira in sugaya ee u baahan inuu ka go'aan qaadano waxyaabaha mar walba aan meel kasto aan dadweynaha kula kulanno iyo mar kasto la kulanno waxyaalaha aan ku guubaabino ee aan maaragtay qodobka wareeg ku guubaabino waxa weeyaan waa midnimada ummadda midnimada ummadda waxa weeyaan wax kasta oo la qabanayo salaada waxa weeye safafkeeda waxa loo safay loo yiri inay aflaaqa yeelan oo kala dheeraanin waxa weeye waa nooc ka mid ah midnimada dadka muslimiinta saadarteed midnimada hadii la waayo wax la helayaa ma jiro marka qodobka koowaad ee ummadda mar kastaba aan ku guubaabino waxa weeyaan in ummaddu ay midowdo waxa lagu midoobayo laakiin waa in la ogyahay
midnimadu waxaa weeye aan doonaynaa waa midnimada lagu midoobayo mabda'a xalaasha lagu midoobayo waxa danta u ah ummadda lagu midoobayo waa midnimo ka bilaabata qowmiyadda soomaalinimo yacni soomaaliyeed ka bilaabata weeye halkaa haddii laga bilaabo oo la xoojiyo qowmiyadnimada waxaa la gaadhayaa wax kasta oo loo baahan yahay ama wax kastoo inaga maqantaan gaadhaynaa taa waxaan u yeelayno ee aan qodobkaa ugu xoojinayno waxaa weeye isbeddelka ka dhacay etoobiya wuxuu horseeday in qowmiyadu waliba ay danaheeda ku foofto etoobiya wax la dhaho oo wada jiray oo ma garanaysaa isku dada oo isku isir oo isku luqad oo isku diini ma jirin waxay ahaayeen qowmiyado fara badan oo xoog lagu hayay bay ahaayeen qowmiyad yar ama labo unbaa xoog ku wada haystay inta kale laakiin wax iskood iyo doonistooda isugu yimid ma aysan ahayn isbeddelka marka dhacay wuxuu keenay in qowmiyadii waliba ay danteedii ku foofto sababta wax isku xidhaaba ma jirin xoog baa lagu wadahayay xoogii waa meesha ka baxay qolo waliba danteedii bay marka ku fooftay saa darteed wax etoobiya la yidhahdaa ma jiraan waxaa jira dawlad Addis Ababa ka dhisan baa jira oo taag yar baa jirta laakiin ficil ahaan marka la fiiriyo waxaa weeyaan qowmiyadaha jira dalkii etoobiya loo aqoon jiray un ku dhaqan oo qowmiyadii waliba ay danteeda ka shaqaysanayso qowmiyad walibana waxay isu diyaarinaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee etoobiya la astaynayo sidii ay qurubka ugu weyn uga qaadan lahayd bay qolo waliba isu diyaarinaysaa kol haddii ay sidaas tahay marka soomaalidana waxaa laga maarmaan ah inay iyaguna qowmiyad ahaan isu diyaariyaan in ay waxa la yaali wixii kala qaybinaya ay ka xoroobaan inay cabsida ka xoroobaan in ay maaragtay nacfidoonnimada ka xoroobaan inay qabiilka ka xoroobaan inay waxa la yaali wixii kala qaybinaya ay ka xoroobaan taas markii la helo waxaa suuragal ah in wax lala qaybsado qowmiyadaha kale oo waxa inaga maqanna aan ka soo ridanno wixii kale aan qaadan karnana aan ka qaadanno mustaqbalkaa siyaasadeed ee la astaynayo marka kaasi waa qodobka koowaad weeye waa in soomaalinimo lagu midoobo wey soomaalidu maanta maalin ay uga dhowdahay in ay isku dan noqoto oo hal dhinac u jeesata ma jirto dalka intiisa badan waan soo marnay dhaafihiisa waan soo marnay goobihii halganka markii hore budigaha waan soo marnay goobaha kalena waan soo marnay mar kasta oo tala la isugu yimaadiyo cid kastood la kulanto waxay diyaar u yihiin in hadaf soomaaliyeed iyo mabda' soomaaliyeed iyo midnimo wax lagu wada qabsaday diyaar u yihiin waxay kaloo diyaar u yihiin ururkii intaa halganka soo hogaaminaya inuu dadka soomaalinimo iyo maaragtay midnimo inuu ku hogaamiyay diyaar u yihiin kol hadday sidaas tahay innagana mar haddii aan halganka hormood u ahayn xil baa ina saaran oo inaga saaran in aynu ummadda soomaaliyeed ku hogaaminno waddada saxda ah marka qodobkaasi waa qodob muhiima weeye marka aan leenahay soomaalinimaha lagu midoobo macnaheedu ma aha in laga tanaasulayo wixii aan aaminsanayn in laga tanaasulayo ma aha waxaa halgankeennu uu u bilowday oo boqolaalka kun ee qof loo dilay ee dhibaatooyinka aad ka war haysaan loo soo mariyey dadkeenna waxaa weeye hadaf iyo mabda' buu ahaa kaas waan ku dheganaanaynaa wax tanaasul ah oon ka samaynaynana ma jirto waxaanan dadka ugu yeedhaynaa inay kaasu nagu raacaan ciddii aan kaa nagu raacaynin uma baahnin taasaa saldhig u ah marka qofka aan markii hore halgan ka qayb qaadanayn haddii uu hadda ka qayb qaadanayo waa inuu ku qanco in dayn lagu leeyahay inuu ku qanco wey dayn lagu leeyahay 30 sano dhibkii iyo baabi'ii la soo maray inuu isagu ka maqnaa dabeetana dayn lagu leeyahay isagoo taa ku qanacsan waa inuu soo raaco maaragtay kacaanka cusub iyo hawshan lagu raadinayo midnimada ummadda Soomaaliyeed taas waa qodob weeyaan qodobka labaad waxaa weeye maanta halkan waynu isugu nimid kama cabsanayno inaynu markaynu saa u kala dareenno qaarna la xidho qaarna la laayo ama afxumo iyo dhib loo geysto kama cabsanayno taasna waxay ku timid nabadda aynu haysanay ku timid nabaddaasi mid hadiyada laynoo siiyey maaha mid Etoobiya ay maaragtay sad inoo siisay ma aha waa nabad ku timid dhiiggii shuhadada waa nabad ku timid adkaysiga shacabka waa nabad ku timid dhabar adaygii aan samaynay
iyo caabigii aynu samaynay aynu iskaga caabinaynay gumaysiga Itoobiya inta la shaqaynaysay taasay nabaddu ku timid nabaddaasi marka waa lagama maarmaan nabaddaasi marka waa laga maarmaan inaynu ka shaqayno oo si wada jir ah aynu ka shaqayno sidii ay taabagal u noqon lahayd ee ay u taagnaan lahayd annagu ka urur ahaan tan iyo maalinkii aan gudaha nimid waxa weeye baaq annagu mar walba wuxuu ahaa waxaan garab taagan oo taageeraynaa cid kasta oo nabadda taageeraysa sababtoo ah waxaan ognahay colaadda iyo dhibaatada iyo nabad la'aantu dhibka ay leedahay baan ognahay dhibka ay annaga noo geysataan ognahay dhibka ay shacabka iyaga u geysataan ognahay midka ay soo wadataan ognahay saa darteed mar walba baaqa iyagu wuxuu ahaa inaan garab istaagno cid allaale ciddii nabadda maaragtay tabantaabinaysa ee wax ka taraysa inaan garab istaagno taasoo macnaheedu yahay dowladda deegaanka jirta inaanu ku garab gelayno oo aanu ka taageerayno sidii nabadda loo adkayn lahaa hadday noqon lahayd heer deegaan iyo hadday noqon lahayd heer degmooyin ama tuulooyin ay noqon lahayd nasiib darro intii hadda ay dhibaatadu maaragtay inaga kacday waxaa weeye dadkii dib bay isugu foofeen waxaana keentay siyaasaddii dowladda Itoobiya iyo intii la shaqaynaysay ay maleegeen baa saldhig u ah meel walba waxaad arkaysaa waxaa la isku haystaa maaragtay tuulooyin yaryar baa la isku haystaa dhuldaaqeynkii oo dhan baa tuulooyin laga sameeyey marka waa tuulooyin loo sameeyey in kow halganka lagu majara habaabiyo ama lagu minjaxaabiyo iyo labo in maaragtay dadka dhaqanka lagaga dilo waa tuulooyin qabandi in loo samaystay laakiin nacfi kale oo ay u leeyihiin bulshada ayna jirin taas marka waxay keentay iska qabsi fara badan oo dadka dhexdiisa runtii arrintaas aad baan uga xunnahay waxaa weeye nabadda timid waa in lagu xamdiyo wey dalku wuu inaga badan yahay wuu inagu wada filan yahay waa la wada degi karaa macnihii wixii dulmi ee jirana waxaa weye dariiq sharci baa loo mari karaa oo hadda maamulka deegaanku shuruuc bay ka soo saareen go'aamano way ka soo saareen kuwaas iyaga in lagu caawiyo lagu garab galo oo wixii dhib ee jira maaragtay xal nabadeed iyo mid sharci loo maro laakiin in iska qabsi iyo isdagaal iyo xabad uma ciil qabno dad inaga dhintana uma ciil qabno dhibaato kalena uma ciil qabno taas waa midda nabadda iyaduna